عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوديال meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada war wixii naga soo gaaray deegaanada ay Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale warku wuxuu idin mariyaa telefishinka caalamiga ee KBN xaruntiisa magaalada Hargeysa warku waxay idin la socodsiinaysaa anigoo ah Faysal Xasan Axmed Faysal Muxibo qodobada warkeena habeenimo ugu door karan waxa kamid ah halkay ku dambeysay gudidii dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka tuqa magaalada Nairobi oo xabsiga la dhigay 280 qof ayaa ku dhintay daadad roobab ka da'ay bariga Afrika say sheegeen jamciyadda quruumaha u dhaxaysa xildhibaan Cabdiraxmaan Caalim oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si adag uga jawaabay hadallo hore uga soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faysal Cali Waraabe daawadayaal kuwaas waa qodobada wararkayga ugu door karoon qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan imikana ku soo dhawaada halkay ku dambeysay gudidii dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka muddo ilaa 2 toddobaad waxaan wariye wacaal laga hayn meesha ay taan iyo cirib dhigeen gudidii suxil qaantay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka ee u badnayd wadaadada iyo ganacsatada dalka kuwooda ugu maalka roon shacabka ayaa isweydiinaya halka ay la gashay maslaxadii ay wadeen ee ay isku xilqaameen inay isku soo dhaweeyaan khilaafka ka dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka in ay meesha ka saaraan dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in aysan jirin wax xal ah oo ay gudiga ka gaari karto khilaafka labada dhinac ee xukuumadda iyo mucaaradka Faysal Xasan Axmed telefishinka caalamiga ee KBN magaalada Hargeysa Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa toddobaadka soo socda u safri doona magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway si loogu gudoonsiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize Dr. Abiy Ahmed ayaa abaalmarintan ku guuleystay bishii Oktoobar ee sanadka isagoo ku mutaystay dadaalo nabadda leh oo ku soo afjaray colaadii muddada dheer u dhaxaysay dalka Itoobiya iyo Eritrea Faysal Xasan Axmed telefishinka caalamiga ee KBN magaalada Hargeysa tuqa magaalada Nairobi ayaa xabsiga la dhigay waxaa maanta ciidamada booliska dalka Kenya ay xabsiga u taxaabeen duqa caasimadda Nairobi ee dalka Kenya waxa lagu eedeeyay musuqmaasuq la xiriira lacag badan oo uu ka lunsaday ismaamulka iyo horumarinta magaalada Nairobi Nuuruddin Xaaji dacwad oogaha guud ee dalka Kenya ayaa sheegay in Master Sonko su'aal lagu weydiin doono halka ay ku maqan tahay lacagta badan ee ka qayb ah dhaqaalaha lagu talagalay ismaamulka Nairobi waxa uu sidoo kiiskiisu hayo cadeyn ku filan Xaaji ayaa dhanka kale booliska amar ku siiyay inay ka hortagayaan wax wal oo caqabad ku noqon kara baaritaanka lagu wado Faysal Xasan Axmed telefishinka caalamiga KBN magaalada Hargeysa 280 qof ayaa ku dhintay daadad roobab ka da'ay bariga Afrika sida ay sheegeen jamciyadda quruumaha warka waxay noo soo diray wariyeena Xamse Khadar Maxamed inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyootay daadadkii iyo fatahaadihii ka dhashay roobabkii ka da'ay bariga Afrika dad lagu qiyaasay 280 qof halka in ka badan 2.8 milyan oo qof oo kale ay dhibaato ka soo gaadhay roobabkaasi dhawaan ka da'ay bariga Afrika sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa maanta Jimcaha bishii Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii roobab sababay fatahaado iyo daadad laxaadle ay ku dhufteen meelo badan oo ka mid ah dalal ku yaala bariga Afrika oo Soomaaliya ka mid tahay iyadoo ay sidoo kale dhawaan ay waxyeelo kala duwan ka geysteen wadamada Uganda, Tanzania iyo Kenya digniin dhawaan la soo saaray ayaa sheegay in laga baqdin qabo roobab kale oo ka daa wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay gaar ahaan meelaha xeebaha xukuumadda ayaa dadweynaha ku wacyigelinaysa inay ka fogaadaan meelaha xeebaha ee khatartu ka iman karto Xamse Khadar Maxamed telefishinka caalamiga KBN magaalada Hargeysa daawadayaal intaa waxay nagu soo dhamaaday wixii naga soo gaaray deegaanada ay Soomaalidu degtay caalamka intiisa kale warka waxay idin la socodsiinaysay anigoo ah Faysal Xasan Axmed Faysal Muxibo tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh